Asalaamu calaykum waraxmatullah. Kuuriyada Waqooyi ama North Korea ma aha dal nagu cusub. Dhammaanteen waynu ognahay inuu ka taliyo wiil isku tilmaamay keligii taliye, kaas oo adag tahay in qof shacabkiisa uu ka soo baxsado dalkiisa, weliba si nabad ah. Dhibaatada uu ku hayo shacabkiisa waa mid aan la soo koobi karin, waana midda keentay in shacabka dalkaasi ku nool ay habeen walba ku jiiftaan iyaga oo niyadda ku haya sidee ayaad uga baxsan kartaa dalkan. Naftoodana khatar ayay u geliyaan sidii ay mar unaga soo baxsan lahaayeen. Maanta muuqaalkeena waxaan ku soo qaadanaynaa qaababka ay suurtagal tahay in laga soo baxsado dalkan ee Kuuriyada Waqooyi. Ilaa hadda waxaa jira dad aad u yar kuwaas oo isku daya inay ka soo baxsadaan dalkan. Qaar ka mid ah way ku guuldareysteen, halka qaar kale ay ku guuleysteen. Dadka noocan ah waxaa lagu magacaabaa North Korean defectors. Laga soo bilaabo sanadkii 1996 ilaa sanadkan aynu ku jirno, waxaa la rumaysan yahay in dad gaaray ilaa 100 qof ay ka soo baxsadeen dalkan. Haddaba sidee ayay u soo baxsadeen dadkani? Ugu horreyn, Kuuriyada Waqooyi dhanka koonfureed waxay xuduud kala leedahay Kuuriyada Koonfureed, ahna dal dimuqraadi ah. Haddii aad u baxsato dalkan, waxaad ka helaysaa ammaan iyo nolol ka wanaagsan tii aad ka soo baxday. Balse dhibku waxa uu ka jiraa xuduudda kala qaybsan labadan dal. Waxaa ku yaala darbi iyo sulugyo koronto leh, kuwaas oo dhirirkoodu aad u sarreeyo. Bambooyin ayaa sidoo kale ku aasan, waxaana ku sugan ciidamo 24 saac toosh ku haya xuduuddan. Haddii aad soo martana, nolosha ayay kugu dilayaan, ama xabsiyo aan ka soo bax lahayn ayay ku dhigayaan, iyagoo sidoo kale ku ciqaabaya. Waxaa jira nin isku dayay inuu soo maro xuduuddan isaga oo ka soo baxsanaya Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu sitay gaari. Markii uu soo gaarayna xuduudda, gaarigii ayuu ku dhuftay gidaarka kala qaybiya labadan dal. Ciidankii ayaa ku baraarugay, way xabadeeyeen, waxayna ku dhufteen 5 xabo oo rasaas ah, balse waa uu ka badbaaday. Waxaana markii dambe u gargaaray ciidamada Kuuriyada Koonfureed. Xilligan waxa uu ku nool yahay magaalada Seoul. Aynu u imaano waqooyiga dalkan, China ama Shiinaha. Dhanka waqooyi ayuu xuduud kala leeyahay. Xuduuddan dhanka ilaalinta waa ay ka jilcan tahay xuduudda Kuuriyada Koonfureed. Dalkan marka aad magaca ka eegto, waa dal ay joogaan dadka ugu badan adduunka, balse inaad u soo baxsato dalkan kaama dhigayso mid guulaystay. Maxaa yeelay, haddii aad u soo baxsato dalkan, waxay la mid tahay adiga oo Kim Jong-un u tegay oo dhahay ciqaab. Maxaa yeelay, sharciyada dalkani waxa ay qabaan in dib lagugu soo celiyo meeshii aad ka soo baxsatay, ahna Kuuriyada Waqooyi. Waxaa jirta gabar iyo hooyadeed kuwaasoo u soo baxsaday Shiinaha. Intii aysan ciidamada Shiinaha gacanta ku dhigin, waxaa gacanta ku dhigay ganacsato ka ganacsata dumarka. Gabadhan iyo hooyadeed waa la iibiyey. Gabadhu waxay ahayd mid bikra ah, waxaana lagu iibiyey lacag ka badan lacagtii hooyadeed lagu iibiyey. Gabadhan iyo hooyadeed sidaas ayay ugu noolaayeen Shiinaha. Sidoo kale, dalka Ruushka ayaa kugu soo celin doona Kuuriyada Waqooyi haddii aad u baxsato. Bariga iyo galbeedka waddankan waxaa ku hareeraysan bad, waana qaabka ugu adag ee aad uga baxsan karto waddankan. Maxaa yeelay, ma heli doontid wax doon ah, xitaa haddii aad haysato lacag kugu filan, keliya dabaal ayaad uga bixi kartaa. Mid ka mid ah nin xil hooseeya ka haya ayaa isaga iyo saaxiibkiis ka soo baxsadeen waddankan iyagoo soo maraya badda. Waxay soo qaateen lug gaari iyo cunno fara badan. Waxay soo dabaalanayeen 4 saacadood, ilaa markii dambe ay arkeen markab ku soo food leh. Waxay ku ag dhowaadeen jasiirad si ay uga dhuuntaan markabka. Subaxii markii la gaaray ayay geedo isku xirxireen, wayna ku soo dhaqaaqeen iyagoo markii dambe soo gaaray xeebta Kuuriyada Koonfureed. Sidaas ayay ku badbaadeen. Kuuriyada Waqooyi waxaa lagu tiriyaa in ay ka daran tahay xabsiyada qaar, maadaama ay adag tahay in si nabad ah looga soo baxsado dalkan. Muuqaalkeena maanta intaan ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.